isweydiin ma xuma waxaa jira bog aan baaritaan ku waday muddo dheer Soomaaliya waxa ay ka kooban tahay 3 qabiil waxa la yiraahdaa Daarood Dir iyo Hawiye cadaaladiisa iyo hanaankiisa laba qaybood ayaa codka ama sadkii loogu talagalay Hawiye laba qabiil isku ceeshatay hadda 3 noqdeen waxa ra'iisul wasaare wadanka ka noqon jiray Abgaal ama Habargidir waxa madaxweyne ka noqon jiray Abgaal ama Habargidir Hawiye qabiil saddexaad ku soo kordhay oo siyaasadii ka soo muuqday oo la yiraahdo Murusade 3 qaybood bay noqdeen Hawiye maanta ra'iisul wasaare waxa noqon kara qof Murusade ah qof Abgaala iyo qof Wacisla qof Abgaala iyo qof Murusade iyo qof Habargidir Daarood ayaa raba marka inaan u soo jeesto taariikhda Soomaaliya ogaadeen ra'iisul wasaare ah iyo madaxweyne ogaadeen lama arag maxay ku dhacday miyuusan ogaadeen astaahilin inuu dalka ka noqdo madaxweyne miyuusan ogaadeen astaahilin inuu ra'iisul wasaare noqdo siyaasadda beelweynta Daarood jadwalkee ogaadeen ugu jira ogaadeen waa dad hiddo iyo dhaqan uga horeeya inta badan Soomaalida waa dad xaq u dirira oo inta badan Soomaalida uga horeeya waa dad boqolkiiba 99 dagaal u gala magac Soomaaliyeed halka dadka qaarkood ama qabiilada Soomaaliyeed qaarkood ay boqolkiiba 99 dagaal sukeeyo u galaan ama dagaal qabiil ogaadeen waa dad magac ama calan Soomaaliyeed muddo dheer gacanta ku hayay laakiin ra'iisul wasaarnimo waa loo diiday madaxweyne waa loo diiday taariikhiyan intii dalku uu burburay iyo xilligii gumays iyo xilligii militariga iyo xilligii dimuqraadiyadda mar walba oo aan baaro Daarood waxa ii soo baxa ma jeerteen mareexaan iyo waxa ii soo baxa may waa inta kaliya ma jeerteen iyo mareexaan kaliya ii soo baxa Daarood ogaadeen jadwalka idinkuuma jira miya maxay ku dhacday madaxweyne Cali Mahdi markii uu talada dalka la wareegay 19 kadib ra'iisul wasaare ogaadeen waa keenay waayay الله ونحرسته عبد الله يوسف مركو دلك الله وريق رئيس الوزراء وقادينا واكينا واي عبد القاسم صلاح حسن مركو مدحوينا النقضي رئيس الوزراء وقادينا واكينا واي شيخ شريف مركو مدحوينا النقضي رئيس الوزراء وقادينا واكينا واي حسن شيخ مركو مدحوينا النقضي رئيس الوزراء وقادينا واكينا واي مدحوينا فرماجو مركو مدحوينا النقضي رئيس الوزراء ما كيني كرو و 4.5 isaga booska ku fadhiya marka Abdullah Yusuf isaga booska ku fadhiyay laakiin isbedelada kale dawladaha farmaajo iyo Abdullah Yusuf marka laga reebo walaalayaalow siyaasadda beelweynta Daarood xaq ma u lahan miya dadkan wadaninimada iyo qiimaha leh inay mar uun madaxweyne ka noqdaan Soomaaliya miyaynan ogaadeen xaq u lahayn inay jiritaankooda rasmiga ah maanta ay ku soo muujiyaan siyaasadda Soomaaliya maxaa loo liidayaa ogaadeen maxay tahay taariikhda ogaadeen u diidaysa ama weyga ogaadeen u diidaya inuu madaxweyne noqdo oo dadka kale u ogolaanaya taariikhiyan miyaysan isku mid ahayn ogaadeen iyo beelaha kale aaway dadka aaminsan oo doonaya inay fahmaan siyaasadda sababta madaxweyne loo noqdo war tira ahaan haddii la yiraahdo Soomaali iyaga u tira badan haddii la yiraahdo qabiil tira ahaan iyaga u tira badan meel walbay dunida ka joogaan horumaray ka gaareen marka Soomaaliya laga reebo war miyaynan nimanku Soomaali ahayn Kenya kamid yihiin Soomaali ayay ugu horeeyaan Kenya ma jiro Soomaali ka horeysa ogaadeen Ethiopia ma jiro Soomaali ka horeysa ogaadeen gayigan la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya maxaa ogaadeen loogu bahdilaya ma daawatay Addis Ababa ogaadeen hormud u ah Soomaali ogaadeen ayaa aftahan u ah Soomaali ogaadeen ayaa indha u ah Kenya marka aad joogto Soomaali ogaadeen ayaa indha u ah Ethiopia sidoo kale wadamada kale Soomaali ogaadeen ayaa indha u ah goobaha hay'adaha caalamiga ah ogaadeen ayaa indha u ah ma ogtahay sidoo kale xafiisyada gargaarka ummadda gargaarka caalamka ee UN-ka وقامية وحقوها أوجدين وأجرى أفتحنا هذا رسمي جاي أخويا هندو وأوجدين لكن صوماليا مركي تجان حبرت هذا كتر مدحونا من نقريا رئيس الوزراء من نقريا محا أوجدين لجوب بهدلة جمهورية الصومالية محا كان إن دولة دي صومالية أوجدين لجوب تكارو محا كان إن لودي دو حلك الرئيس الوزراء نمو بيلاها الرئيس الوزراء صون نقضي دار دوا دول محنته أو مر على خليفة الله رئيس الوزراء نقضي
majeerteen iyo mareexaan lama hayo ogaadeenna tirada daarood uu ku leeyahay iskaba daaye waa Soomaali dadka ugu tirada badan marka aad joogto Kenya waa aqoon-yahanada rasmiga ah ee waxtarka waa balweynta ogaadeen loomana ogolo in ay siyaasadda ku soo biiraan waxa isweydiin mudan oo qof kastaba aan leeylo uga dhigaya maxaa loo liidayaa maxaa loo bahdilayaa ogaadeen